madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqonaya ninkii ugu horeeyay ee Soomaali madaxweyne ah ee abid shir gudoomiye ka noqda shirka qaramada midoobay. Bishan gudaheeda ayaa Xasan Sheekh Maxamuud shirkaasi gudoomin doonaa isagoo madaxweynaha Soomaaliya ah, wuxuuna u safri doonaa magaalada New York saacadaha soo aadan. Sidoo kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa wadanka Switzerland gaar ahaan magaalada loo yaqaano Davos shir caalami ah oo ka soconaya. Barnaamijkiisa la sheegay inuu wareegeysanayo isaga oo doonaya in madaxda caalamka ee halkaasi isugu yimid uu shirar la yeesho. Waxa arintaasi si aad uga caawinaya Israa'iil oo uu madaxweynahooda la kulmay isla markaana qabanqaabinaysa shirar kale inkastoo kii ugu weynaa lagu fashilmay. Halkan ayaan rabaa inaan kugu faahfaahiyo. Waxaad kaloo barnaamijkeena ku daawan doontaan Villa Soomaaliya oo ismaandhaaf siyaasadeed dhexda ka taagan wadamada caalamka oo ku dagaalamaya. Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan uu Addis Ababa u aadi rabay baajiyay safaro kale iyo casuumado kale oo u soo dhacaya xaaladaha oo ku qasan Villa Soomaaliya. Barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan. Maanta argagixisada Jubbaland waxaa lagu dhigay cashar buuxa. Jasiiradda Kudaa boqolaal ayaa lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo isgarabsanaya. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan barnaamijka ku falanqeynaynaa ee kusoo dhawow saaxiibadana u shargare haddii aad nagu cusub tahana nagu sabir. Aynu ku bilaabano madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqonaya madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya ee abid shir gudoominaya shirka qaramada midoobay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u safri doona magaalada New York halkaasi oo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiya uu bishan shaqada gudoominta qaramada midoobay uu hayay. Marka uu halkaasi Xasan Sheekh Maxamuud tagana isaga ayaa ergeyga kala wareegaya shaqada gudoominta, wuxuuna halkaasi ka jeedin doonaa khudbad uu uga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo in Soomaaliya ay tahay hal wadan oo aan kala go'i karin. Israa'iil xadgudubka ay siisana halkaasi ayuu madaxweynaha Soomaaliya uga hadli doonaa. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la qorsheynayaa in maalmaha soo aadan uu u safro magaalada New York si bishan dhammaadkeeda uu u noqdo gudoomiyaha isla markaana uu u jeediyo khudbad xasaasi ah oo dunida dhan saameyn doonta. Markana magaalada Davos ee wadanka Switzerland, madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa halkaasi ku safray. Ciro waxaa xusid mudan safarkiisa kuma uusan imaanin qaab diblomaasiyadeed ee wadamada caalamku ay ku yimaadeen. Halkaasi waa mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee dhalashada ka haysta wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Finland. Halkaasi oo Cabdiraxmaan Ciro baasaboorkiisa ugu soo safray waxaana kula ballansanaa madax kale oo u horeyso madaxda Israa'iil oo ayagu sheegay in ay kala shaqeyn doonaan sidoo ula kulmi lahay madax aad u sarsareysa oo caalamka uu ka mid yahay Trump iyo sidoo kale madaxda reer Yurub si ay uga dhaadhiciyaan qadiyadda Yurub. Hase ahaatee madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayay ku adkaatay inuu soo galo hoolka shirku uu ka socdo maadaama aysan jirinin wadamada caalamka ee halkaasi jooga Somaliland in ay wadan u aqoonsan yihiin marka laga rabo Israa'iil. Sidaas daraadeed ayay ku adkaatay inuu shirkaasi kasoo qayb galo oo u fariisto. Laakiin marka shirka laga soo baxo barnaamijkiisa la yimaado ayuu madaxweynaha Somaliland ka qayb qaataa kulamada dadka ay isfahamsan yihiin ama ololeynaya oo cashada uu la qaato kuwaas oo kala sheekaysto xaaladaha dunida gaar ahaan in Somaliland wadan ay noqotay oo lagala shaqeeyo. Xalay ayaa lagu arkayay xaflad casho ah oo isugu yimaadeen dad dunida saameyn ku leh oo ah kuwa ganacsatada iyo kuwa kale kuwa siyaasiyiin ah kuwaas oo ka mid yahay wiilka uu dhalay Trump iyo sidoo kale nin caan ka ah wadanka UK oo koox wadanka UK iskale kuwaas oo dhammaantood dadkan ay u badnaayeen koox Yahuudiyiin ah oo ayagu ka soo jeeda halkaasi iyo kuwa kale oo la shaqeysta. Cabdiraxmaan Ciro ayaa la qorsheynayay in ay dadkani kala shaqeeyaan sidii uu la kulmi lahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, laakiin arintaasi waxay noqotay mid adag waana ay suurtageli weysay. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugan wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ayagu dal ahaan Soomaaliya halkaasi ku tagay kuwaas oo ka mid ahaa dadka shirka lagu casuumay kana qayb ahaa isla markaana khudbado ka jeedin doona. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya oo ku safrayay baasaboorka Soomaaliga ee diblomaasiga ah ayaa halkaasi tagay halka Cabdiraxmaan Ciro oo ku safrayay baasaboor Finlandiis ah isagoo muwaadin caadi ahna uu Yurub u soo safray oo uusan dowlad matalaynin. Wixii warar halkaasi ka soo kordha waa idin la soo socodsiin doonaa iyo caawa shirarka laga yaabo in Cabdiraxmaan Ciro uu ka qayb galo. Markana madaxweynaha
maamulka Jubbaland ayaa ciidamada Jubbaland waxa uu ku amray in magaalada deegaanka Kudaa oo ah jasiirad ay argagixisadu gacanta ku dhigeen ay si degdeg ah ula wareegaan. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa halkaasi weerar lagu qaaday kadib markii kooxda argagixisada ah ay shalay la wareegeen, waxaana ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland oo iskaashanaya ay ku guuleysteen in fariisimihii Al-shabaab ay ku sugnaayeen ay hore ula wareegeen, cagta la mariyo, kooxo badan halkaasi looga burburiyo ama looga dilo, qalabkoodiina laga qaato. Magaalada Kudaa haatan xaaladeedu weli ma degana, ciidamaduna waa is hor fadhiyaan, laakiin waxaa la rajeynayaa in ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya saacadaha soo aadan magaaladaasi ay gacanta ku dhigaan, walow ay helayaan taageero dhanka dibadda ah oo kor laga duqeynayo kooxda argagixisada ah ee halkaasi ku sugan. Markana dowladda federaalk ee Soomaaliya, Villa Soomaaliya ayaa waxa ay dhex dabaalanaysaa ismaandhaaf siyaasadeed kadib isjiidjiidka siyaasadeed ee wadamada caalamka ee labada garab kale ah ee Imaaraadka Carabta iyo Addis Ababa, Sacuudiga, Turkiga, Qatar iyo Masar oo dhinac uga socda oo dowladda federaalk ee Soomaaliya kala jiidanaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu qorsheynayay in magaalada Addis Ababa u safro, halkaasi oo la doonayay inuu ka qayb galo dabaaldeg ay ciidamada cirka ee wadanka Itoobiya ay leeyihiin. Shirkaasi ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ku casuumay, waxa uu doonayay in uu aado, laakiin waxaa soo baxay in isla shirkaasi uu imaanayo ninka u sareeya Imaaraadka Carabta Abiy Ahmedna Xasan Sheekh Maxamuud uu u qorsheynayo ama uu qoolayo in uu la wada hadashiyo si kadisana qol isugu soo geliyo ninka Imaaraadka madaxda u ah, taas oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ka gaabsaday in uu sameeyo, waxaana baajiyay shirkii uu halkaasi ku aadi lahaa. Arrinta xogta ayaa waxaa soo siiyey Villa Soomaaliya sida wararku cadeynayaan wadamada saaxiibada ay yihiin dhawaantana isku beereen ee Sacuudi Carabiya, Turkiga, Qatar, kuwaas oo sheegay in shirkaasi ka qaybgalkiisa ay noqon karto xaalad khatar ah oo wadahadalka iyo saaxiibtinimada u bilaabatay ay shaki geli karto. Sidaas daraadeed ayaa Xasan Sheekh Maxamuud loo soo jeediyey in uusan ka qaybgalin shirkaasi gebi ahaantiisna, waana uu baajiyay madaxweynaha Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa la filayaa in wadanka Masar uu dhowaan safar ku tagi doono, halkaasi uu casuumaad rasmi ah ka helayo madaxweynaha wadanka Masar Al-Sisi, kaas oo ay kala hadlayaan xaaladaha Soomaaliya iyo sidoo kale isbedbedelka soo kordhaya iyo Somaliland sidii looga hortagi lahaa ictiraafka ay siisay Israel. Arrimahan oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay doonayaan in wadamadan ay aad ugala shaqeeyaan. wixii warar ee halkaasi ka soo kordha halkan ayaa ka heli doontaa. fadlan muuqaalkan sheer garee, saaxiibadana u gudbi. haddii aad nagu cusub tahana adigu nagu soo biir.